بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta ah what is a balance sheet. sidii aan ku soo aragnay qeexidii hore ee financial statement waxaan ku sheegnay in financial statement loo kala saaro afar qaybood waxaana ka mid ah balance sheet oo aan rabno inaan halkan ku qeexno. marka qeexida balance sheetka waxaan dhihi karnaa waa dokumenti qoran oo sawir ka bixiya xaaladda maaliyadeed ee shirkadda xilli mucayan ah. dokumentigan xogta aan ka helno way badan tahay balse waxa ay hoos imaadaan kow assets oo ah inaan ogaano meelaha kala duwan ee shirkadda hantideeda ka timid iyo inta ay leegtahay. liability oo ah waa maxay deynta lagu leeyahay shirkadda iyo xilliyada la rabo in la bixiyo. sidoo kale equity oo ah midda saddexaad taasoo ah hantida saafiga ah ee shirkadda taala imise ayay leeyihiin milkiilayaasha shirkadda. haddaan si guud uga hadalno saddexda qaybood oo aan soo sheegnay haddana hortiina ka muuqda oo kale ah kow assets, labo liabilities iyo saddex oo ah owners equity. aan ku bilowno inaan qeexno assets. waxaan dhihi karnaa waa hantida ay leedahay shirkadda oo la sugayo maamulka shirkadda iyo shaqaalahaba intay ku shaqeeyaan inay ku ballaariyaan shirkadda. si guudna waxaa loo kala saaraa laba nuuc oo kale ah current assets iyo non current assets. haddaba haddaan qeexno current assets waa hantida ay leedahay shirkadda oo noqon karta lacag hadda la isticmaali karo ama hanti lacag loo bedeli karo muddo sanad ah. halka non current assets la dhihi karo waa hanti ay leedahay shirkadda oo qaadanaysa in ka badan sanad in lacag loo bedelo. qaybta labaad ee balance sheetka dan usoo gudubno waa liability oo ah deynta shirkadda lagu leeyahay oo laga rabo in ay iska bixiso. si guud liability waxaa loo kala saaraa labo current liabilities iyo long term liabilities. haddaan ku hormarno current liabilities waa deyn laga rabo in ay shirkadda ku bixiso muddo sanad ku siman balse long term liabilities waa deyn ay shirkadda ku bixinayso in ka badan sanad. haddaan isla aragno qaybta saddexaad uguna dambaysa qaybaha ay ka kooban tahay balance sheetka waa owners equity oo ah hantida saafiga ah ay leeyihiin milkiilayaasha shirkadda. meeshan waxaa noogu qoran laba erayo kala duwan. haddaan ku hormarno owners equity waxaa la adeegsadaa marka shirkadda hal qof uu leeyahay halka shareholders ama stockholders equity la adeegsado marka shirkadda ay wada leeyihiin dad kala duwan ama nuuca shirkadda aan dhahno ay tahay corporation. haddaan u soo laabano equationka ama qaacidada lagu saleeyo balance sheetka sida aragtaan assets waxaa la rabaa inay la ekaato labadan dhinac ah liabilities plus owners equity. sida aad ku aragtaan marka sawirka miisaanka ah waxaa la rabaa labada dhinac inay isla ekaan karaan. tusaale assetko dhan marka la isku daro hadday tahay $100 waxaa la rabaa liabilitieska iyo owners equity oo la isku darayna inay la ekaadaan $100. sababtaas xataa magaca loogu bixiyey balance sheet labadii dhinac inay isdhamaystiri karaan. haddii rabbi idmo saddexda nuuc ay ka harsan financial statementiga sharaxaadooda ayagana way soo socdaan. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.